toddobada dal ee dunida ugu qanisan oo ka hadlay khilaafka siyaasadda Soomaaliya. kooxda G7 loo yaqaan ay isku bahaysteen dalalka adduunka ee dhaqaalaha ku horumaray ayaa warmurtiyeedkii ay ka soo saareen shirkoodii heer wasiir arrimo dibadeed waxyaabaha ay kaga hadleen waxaa ka mid ahaa arrimaha murugsan ee siyaasadda Soomaaliya. wasiirada arrimaha dibadda iyo horumarinta ee dalalkan oo 3 maalmood ee ka horeeyay 6 May ku shirsanaa magaalada London ayaa markii ay ka hadlayeen siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga dalalka ay kaga hadleen waxaa ka mid ahaa Soomaaliya oo ay sheegeen in ay si xoog ah uga walaacsan yihiin ismarwaaga siyaasadeed ee ka jira xiisadihii dhaliyay isku dhacyadii dhex maray dawladda iyo xoogagga la safan mucaaradka iyo cawaaqib xumadii bani'aadanimo ee ka dhalatay sida ay hadalka u dhigeen. dalalka G7 amba G7 waxa ay sheegeen inuu argagax ku noqday go'aankii muddo kordhinta 2 sano ah loogu sameeyay madaxweyne Farmaajo iyo baarlamaanka Soomaaliya, taasoo ay sheegeen inaanu xal u noqon karin ismarwaaga jiray ee geedi socodka doorashada, laakiin taas beddelkeeda uu qiimo tiraya kalsoonidii lagu qabay hoggaanka Soomaalida, hagardaamana ku yahay horu socodka ay sameeyeen hay'adaha dawladeed ee Soomaalida, isla markaana khatar ku yahay badqabka iyo mustaqbalka dadka Soomaaliyeed. dalalka G7 waxa kale oo warmurtiyeedkooda ku sheegeen inay soo dhaweynayaan ansixinta baarlamaanka uu 1 May ku ogolaaday ka noqoshada muddo kordhintii iyo dib u bilowga wadahadaladii dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah ee ku aadanaa dhamaystirka nidaamka doorasho ee ku salaysan heshiiska ay dhinacyadani gaareen 17 Sebtembar. G7 waxay hoosta ka xariiqeen in ay si adag uga soo horjeedaan hindise kasta oo keeni kara in muddo kordhin lagu sameeyo muddo xilaadyada hore iyadoo aan taageero ballaadhan looga helin daneeyayaasha siyaasadda ee Soomaalida. waxa kale oo ay ka soo horjeesteen geedi socod kasta oo barbar socod ah ama doorasho dhinacyada midkood gaar u qabto. dalalka G7 waxa ay hogaamiyaasha Soomaalida ugu baaqeen in ay ka waantoobaan kana dheeraadaan wax tallaabo dambe ah oo dhinacyada midkood uu gaar u qaado, taasoo ay sheegeen inay sii kicinaysa xiisadaha iyo rabshadaha siyaasadda. waxaanay ku waaniyeen in dhinacyada oo dhammi isdejiyaan iyaga oo dhinaca kalena soo dhaweeyay go'aankii golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ee ahaa in ergey gaar ah loo magacaabo khilaafka Soomaaliya, waxaanay ballan qaadeen in iyaguna taageeri doonaan dadaaladaas. ugu dambeyntii warmurtiyeedka dalalka G7 waxa uu hogaamiyaasha Soomaalida ugu baaqay in iyaga oo gudanaya mas'uuliyadda ka saaran dadka Soomaaliya ay sida ugu dhaqsaha badan dib ugu soo noqdaan wadahadallada, wadaxaajood wax dhisayana ka yeeshaan sidii xal siyaasadeed loogu heli lahaa, heshiisna looga gaari lahaa arrimaha dhiman. waxa ay dalalkani ku hanjabeen in haddii qodobkaas ay xuseen lagu guulaysan waayo in beesha caalamka ay ku kalifi doonto inay beddesho hanaanka ay Soomaaliya u marto hadda, inkastoo aanay sii iftiimin waxa uu isbeddelkaasi noqon karo. G7 waa urur dawladeed ay ku bahoobeen dalalka Canada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Japan, Ingiriiska iyo Mareykanku, waxaana kulamadooda goobjoog ahaan uga qayb gala dalka Hindiya iyo midowga Yurub. sahmin la sameeyay sanadkii 2018 ayaa lagu ogaaday in dalalka G7 la baxay ay iyagu haystaan 58% dhaqaalaha adduunka oo dhan. waa dalalka gacanta ku haya sanduuqa lacagta adduunka ee IMF oo si aad ah ula shaqeeya Soomaaliya, sidoo kalena dalalka ugu horeeya dhinaca horumarka warshadaha ee adduunka. sanadihii u dambeeyay siyaabo kala duwan ayay dalalkani saameyn ugu lahaayeen geedi socodka dimuqraadiyadda iyo nabadda ee Soomaaliya. dhinaca kalena warbixin uu wargeyska caanka ee Washington Post ka qoray xaaladaha u dambeeyay ee khilaafka doorashada Soomaaliya ayaa uu sheegay in go'aanka ka noqoshada muddo kordhinta iyo heshiiska Kenya uu mar kale xaaladda siyaasadda aad u dejiyay, isagoo hoosta ka xariiqay kaalinta ay dawladda Qatar ku lahayd soo afjaridda khilaafka labada dal oo si rasmi ah loogu dhawaaqay markii uu ergeyga gaarka ah wasiirka arrimaha dibadda dalka Qatar socdaal ku yimid Muqdisho iyo Nairobi oo labada madaxweyne ee labada dal la kulmay, isagoo labadoodba guddoonsiiyay dhambaal uu uga siday amiirka dalka Qatar. ergeyga dalka Qatar Mudane Mutlaq bin Majid Al-Qahtani ayaa isaguna waraysi uu bixiyay ku sheegay in maadaama oo xaaladda amni ee Soomaaliya ay nugushahay inay tallaabo togan ahayd go'aankii maamulka geedi socodka doorashada loogu dhiibay ra'iisul wasaare Roble. waxaase uu ergeygu beeniyay in dalka Qatar uu taageero gaar ah u hayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isaga oo dalka Kenya iyo Soomaaliyana u rajeeyay in tallaabada ay xiriirkooda ku wanaajinayaan ay dadkooda iyo gobolkaba baraaro u horseedi doonto. Marjaan Tube.